berbera waa magaalo shalay iyo maanta ka caana oo taariikh aad u fac weyn leh sida ay buugaagtooda ku sheegeen qorayaal tiro badan oo ugu horeeyay qoraal reer Shaam oo la yiraahdo Ibn Battuta. berberi waa magaalo aad u fac weyn kuna taariikhaysan qarnigii 15aad. guriga 812 warbixin uu ka diyaariyay qoraal u dhashay wadanka Britain oo lagu magacaabo John Donne ayaa marsada xeebeedka berbera xilliga uu qoraal ka diyaariyay waxa uu ibi magaalada berbera waxaanu ku xusay inay magaalo xeebeedkan berbera ay tahay goob ganacsi oo dadyo badan u iman jireen siday wax uga dhoofin lahaayeen waxna uga soo dejin lahaayeen. magaalada berbera waxa ku nool dadyo badan oo u badnaa Tukri, Hindi iyo Carab. xilligaasi berberi waxay ku tilmaameyd ama ay ahayd ganacsi iyo xadaarad fac weyn. shaqada ugu sareysa ay dadka qabtaan waxay ahayd abbaan ama wakiil oo waqtigaasi berbera ay ahayd dekad yar oo dabiiciya iyadoo waqtiga dabadeed la dhoofin jiray xoolaha nool, foolka maroodiga, baalka gorayada iyo subaga iyo waxyaabo badan ay adeegyada bulshada ee dabiiciga. berbera waa qarniyo waxay noqotay mid aan laga maarmi karin loogana imaado dunida inteeda kale. waa magaalo xeebeed berberi waa magaalo inta badan loo ogsoon yahay xeebaha magaalada daqada ku yaala buugaagtan laga qoray aanay ku koobnayn mid iyo labo. sidoo kale Ray Burton oo u dhashay wadankana kala soo jeeda wadanka Britain ayaa warbixin uu buugaag ku qoray wuxuu ku xusay inay berbera ka mid tahay magaalooyinka ugu dhaqdhaqaaqa badan mandaqada geeska Afrika uguna camiran Afrikada bari Asia. waqtigaasi berberi waxay si xawliya u socon jiray waliba bilaha November ilaa bisha dadka waqtigaasi ku noolaana waxay ahayd mid noloshoodu isku dheelitiran tahay. ganacsatada dunida waqtigaasi berbera way u tirsanayd ganacsatada geeska Afrika iyo waliba iyagoo ku bixin jiray si berberi u noqon lahayd dekadaha ugu waaweyn ee caalamka. berbera markaaynu ka nimaadno taariikhda fac weyn bal aan eegno isbedeladii ganacsi iyo marxaladii dekada berbera ay soo martay. dekada berbera ee dabiiciga kadib waa dawladihii Ingiriiska ay dhistay dekad yar oo sidaa u sii weyneen. haddaba dekada berbera maxay ka bedeshay bulshadii ku noolad waqtigaasi? sanadkii 168 dawladii ugu horeysay midowga Soviet ee Russia waxay ka dhistay dekad yar oo rasmaala oo dhererkeedu dhan yahay 320 mitir. taasina noloshii iyo dhaqaalihii ay u noqotay laf dhabarta mandaqadii ay ku hirato. maalgashigii saddexaad ee dekada berbera ayaa la heshiiyay dhismo kororkii oo dawladda Mareykanku ay ka dhistay sanadkii 1864 taasoo dhererkeedu dhammaan 350 mitir. xilligaas oo dekada berbera maalgelin ballaaran u dhisnayd. maanta maalgelin ayay u samaysay shirkadda TP World iyadoo dekada berbera laga munaafacsado waxaanay sababtay inay xarun u noqoto ganacsiga dunida Carab iyo Cajab iyadoo waqtigaasi dekadaha kale aanay ka jirin. berberi waqtigii Soomaaliya waxay ahayd dekadii ugu weynayd wax laga dhoofiyo waxna laga soo dejiyo. Xujaaj waa halkii ugu horeysay ee dekada magaalada berbera oo ahayd dekad wax ka soo degan waxna ka dhoofaan. waxay ahayd mid dabiici ah oo banaano xeebta banaana intaan taarkan iyo deerkan shirkadu ku sameeyay meesha imika degan ka hor xeeb banaan baa halkaas ilaa intaan garabka ka gaaraysa ayaa loo lugan jiray laga soo saari jiray. dekada berbera ay tahay dekadaha dunida ugu istaraatiijiysan haddaba maxay kaga duwan tahay dekada berbera dekadaha kale isku xidha baribiyoodka badda cas maraakiibta u kala goosta dunida iyo ahmiyad intee leeg ayay u leedahay dekada berbera maxayse sababtu tahay? Axmed Xaaji Cali Cadabi maareeyihii ugu muddada dheeraa dawladii Soomaaliya oo warbixin naga siinayay taariikhihii fac weyn ay soo martay berbera. tii lagu sameeyay breakwaterka hirjabiyaha yani badeedu waa qooq badan tahay badeedu waa badaha ugu raftan waqtiyada markaa South West Monsoonka oo kale badu ay kacdo bada khatarta ah bada waa ku qasbantay adigu inaad shaqadii la wado la socodsiiyo. Captain Yusuf Shayso waa khabiir badda
oo muddo dheer kabtanka ahaa maraakiibta dunida u kala gooshta iyo Yurub iyo Afrika bay isku xidhaa berberi ama Red Sea isku xidhaa marka waxa weeye dib meel ilaahay ugu talagalay way ka sareysaa dhulalkaas oo dhan waa artificial dekadaha khaliijka laga sameeyay maxay to iyo tan maxay to Djibouti tan xamar laga sameeyay waxaas waa artificial tan waa natural ilaahay sameystay bay ahaydba berberi waa meel aan istiraatiijiyadda caalamiga ee maanta jirta oo aad moodo inay u soo rarmayso dhinacan badda cas iyo badweynta Hindiya waliba khaasatan meelaha isaga yimaadaan ee geeska Afrika berberi waxa meel halbowle ah maanta aynu joogno Dubai waxaa jirta xilli ay berberi ka qiimo badnayd Dubai oo ka horumarsanay ka qurux badnayd maanta Dubai Somaliland iyo Soomaaliya iyo geeska Afrika laguma dheeriyay waxa lagu dheeriyay shirkadaha adduunka ugu maanta ugu muxuu ahaayay ugu miisaanka weyn bay ka mid waxaa ku jirta safka ugu horeeya ilaa shirkadda afraad waxay maamushaa dekado badan oo aan Dubai ka baxsan oo caalami ay maalgelisay oo isbedel weyn ku yimid dekadaha khibradda iyo aqoonta iyo adduunka laftiisa la geliyay oo aynu u baahanahay berbera walow ay tahay magaalo qadiimi ah xilligan casriga 30 sano u dambeeyay dunidu way kala tagtay inta badan dekadaha khaliijka iyo boqortooyada iyo kuwa ay ka sareysay ee ku yaalay bariga Afrika dekadii ka jiray hormuud ay ahayd intooda badan dunidu way kala xilligan dekada berberi hormuud ay u tahay maanta inay ugu sareyso caalamka berberi laakiin wali waa halkeedii dekada berbera ayaa ahayd mid ka kooban laba dhismo mid u dhisay Ruushku iyo mid u dhisay Ingiriiska iyadoo wadamo badan ay ku xidhnaayeen sida ay ka mid tahay waddanka Itoobiya waxaa dhex maray isticmaalkii dekada berbera Itoobiya iyo Soomaaliya 150 kilomitir buu kiiga dekada berberi ka kooban yahay ama halka ay maraakiibtu ku soo xidhataa waxa kale uu ka kooban yahay 6 beert oo ay ku xidhan karaan macnaheedu tahay inay ku xidhan karaan 6 markab waa 5 markab oo dhinaca ugu xidha iyo mid roor ugu xidho xagga dambe uu soo galo roor baa la yiraahdaa badeecado badan baa ka soo dega badeecado badanna waanu dhoofinaa geeska Afrika waxa laga yaabaa inay dekadanu saameyn badan bay ku samaysaa xagga kaargooga badeecado badan bay geeysaa Itoobiya Soomaaliya East Africa ama Kenya badeecadaha dhoofaya ama sida xoolaha nool oo kalena dalalka iyo meelo ka shisheeya oo ka yimaadaan shaqada dekadu waa xaami sanad ka dambeeyana badeecadaha iyo kaargooga yimaada wuu kordhaa ama containerka yimaada wuu kordhaa laymanku way kordhaan way wanaagsanaan lahayd kulli badeecaduhu way nagu badan yihiin xilligan maraakiibtu way nagu badan yihiin horumar la kordhiyo dekada kiyeeda waa loo baahan yahay oo gantry crane lagu xidho beert cusub ama kii cusub waan u baahanahay oo gantry crane leh waa nimanka anagu sida aan u shaqeyno dekada hore ilaa 500 mitir ayaan u baahanahay oo dekada cusub lagu daro bagaash saxarado jawaano kartoono waxaan ka sameeyaan jirtay marka waa container dekedeenu uma habaysna containerada laguma talagelin waxaan u baahanahay deked casri oo loogu talagalo qalabkii containerada leh kii dejinayay kii rarayay marka halka way nooga baahi baa ka jirta sideen uga faa'iideysan lahayn teknolojiyada isbedeshay xagga containerada waxaa jirta xitaa maraakiibta laftigooda isbedeshay maraakiibta bari waxaan jirtay wax yar bay ahaan jirtay laakiin imka maraakiibta way waaweynaatay waxaanay u baahan tahay maxaa idhahdaa in siday badda u mari karaan amba ugu soo xidhan karaan dekeda in dekeda yani xagga hoose marka loo eego ugu yaraan ay noqoto ilaa 15 mitir ilaa 14 mitir dekedeenu waa 12 mitir oo keliya baaciyeed
hoos marka loogu marka taaliftii waxaan u baahanay deked weyn oo maraakiibtu kusoo xiran karto oo hoos u dheer oo hoos u qoto dheer waa imka taamalihin waxayna jirtaa dunidii way isbedeshay iminka halkan waxaynu xal la leenahay oo aan bad lahayn waddankan la yidhahdo Ethiopia way 9 milyan ku nool yihiin berigii hore badeecada marsan jiray casab marsan jiray markay ka xidhanteen imka marsada Djibouti-na kuma filla marka halkan baahi baa ka soo baxday waxaa dhex maray heshiis isticmaalka dekeda Berbera Ethiopia iyo Somaliland dejinta iyo dhoofinta haddaba xukuumaddii talada haysay waqtigaasi maxay u gashay fursad Berbera inay u hesho maalgelin dhowr ah oo heshiis caalami ay xukuumadihii hore shirkadaha dunida walow sanado dhowra sanadkii 2011 ayaa isku dayalo la sameeyey ugu dambeyntii Somaliland waxay heshiis la qaadatay DP World iyadoo ay ka mid tahay 4 shirkadood ee ugu horeeyay dunida dekeda Berbera sida kale maalgelin ay Berbera xaqay u leedahay inay hesho maalgelin noocan oo kale waa barnaamij toddobaadla oo ka hadlaya taariikhdii faca weyneyd iyo waxyaabihii ku xusnaa horumarkii Berbera waqtii hore barnaamijkan waxaa soo saaray anigoo Cabdisalaam Socdaala waxaa isku soo dabartay dhinaca kamarada iyo editinka saaxiibka Jamaal Bilo barnaamijkan qaybta labaad ayaan idinla socodsiin doonaa tan iyo arag maqal dambe dhammaantiin meel kasta dunida dacaladeeda ka joogtaan asxaabtayda sharafta leh waxaan idinkaga tagaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh